Getachew Reda ayaa sheegay inay ciidamada Tigreegu saaka soo rideen diyaarad dagaal oo nooceedu yahay helicopter Mi-35. Getachew Reda ayaa sheegay inay diyaaraddu duqeyn ka fulinaysay aagga hore ee deegaanka Mille ee gobolka Canfarta. Weli dowladda ayaan ka hadlin diyaaradan uu Getachew sheegay inay soo rideen ciidamada Tigreegu. Dhanka kale, dabley hubeysan oo aan haybtooda la garanaynin ayaa dad ka badan 10 qof ku dilay agagaarka degmada Bulan ee gobolka Maltakal oo ka mid ah deegaanka Benishangul Gumuz. Dhacdadan weli ma aysan ka falcelinin maamulka deegaanka Benishangul Gumuz iyo dowladda Abiy midkoodna, waxaana u muuqataa inaysan wax dan iyo damqasho ah dowladdu ka lahayn khasaaraha nafeed ee halkaas ka dhacay. Xogtan waxaan ka helay ilo wareediyo halkaas ku sugan. Dowladda Eritrea ayaa iyaduna sheegtay inay muwaadiniinteeda ku sugan Itoobiya kala baxayso iyadoo u sababaysay maadaama oo xaaladda amni ee dalka Itoobiya ka sii darayso. Dagaalkii waqooyiguna haatan isugu soo biyashubtay dhinaca xarunta Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Eritrea ayaa la qiyaasayaa inay dagaalka waqooyi ku weyday ciidamo 40 ilaa 50 kun u dhexeeya, waxaana loo badinayaa in haddii ay isbahaysiga ciidamada Tigreega iyo Oromadu qabsadaan Addis Ababa in bartilmaameedkooda xiga uu noqon doono inay dagaal ku ekeeyaan Eritrea si ay xukuumadda Isaias Afwerki uga takhalusaan. Dhinaca kale, dowladda Abiy ayaa xidhay 16 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo Addis Ababa ku sugnaa. 70 darawallada gawaadhida gurmadka bini'aadamnimada ka shaqeeya oo deegaanka Canfarta ku sugnaa. 38 qof oo isugu jira qaysas kiniisadaha haysta iyo macallimiin diinta Kaatooliga dhiga. Dadkan oo dhammaantood sida la sheegayo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega. Waxaa kale oo ay dowladda Abiy shaqadii ka eriday dhammaan shaqaalihii warbaahinta qaranka ee qowmiyadda Tigreeg ka soo jeeday iyo xataa shaqaale hoosaadkii iyadoo ganacsatadiina la boobay. Waana sababta ay mas'uuliyiinta TPLF ujeedka xaaladda degdega ah ee dalka lagu soo rogay ugu tilmaameen in loola jeedo oo keliya shacabka Tigreega si xidhaygooda, jibdilkooda, xabaalkooda iyo dhaca hantidooda oo Abiy u xalaashado. Dadweynaha ayaana arrintan ka qaylaya oo ku baaqaya inay dowladda Abiy joojiso beegsiga shacabka Tigreega ee aan waxba galabsanin. Dowladda Mareykankuna waxay hawada ka qarisay YouTubero iyo Facebookero waaweyn oo dowladda Abiy taageera, barahoodana ka fidiya propagandada dowladda oo ay janaaladooda ku xidhan yihiin malaayiin qof, kuwaas oo axmaaro u badan, inta badanna shacabka ku abaabulo dagaalka waqooyiga soo gudbay ee bartamaha Itoobiya maraya. Qayb ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalka waqooyiga oo maskaxiyan iyo moraaliyan la saxay laguna dhex qaybiyay ciidamada Tigreega ayay hogaaminta ciidamada Tigreegu dib u soo dagaalgeliyeen iyaga oo saadkii iyo sanadii ciidanba loo dhammaystiray balse dhar shacab ku labisan. qaybtan qoriga qaadatay oo horeyba howlgalka ka bilowday ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin inay cadowga faashistiga ee dalka ku habsaday ka dulqaadaan. Xukuumadda Mustafa Cagshar oo albaabada isugu laabtay Nabad TV-na waxaa kale oo ay xidhay 5 ka mid ah shaqaalihii Nabad TV kuwaasoo ay ku eedeysay in war iska horkeen qowmiyadeed abuuraya ee baahiyeen balse aysan taas waxba ka jirin ee xidhiga TV-ga iyo shaqaalaha lagu banaysanayo.